بسم الله الرحمن الرحيم habeen wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararka caawa ee telefishinka HBI qodobada aan idinkugu haynana waxaa ka mid ah weerar dhimasho iyo dhaawac sababay oo askar Mareykan iyo Suuriyan ah lagula beegsaday bartamaha dalka Suuriya waxaa soo baxaysa faahfaahinta weerar la sheegay in lagu dilay hogaamiye sare oo ka tirsan iska caabinta Xamaas haddaba ma dhaba in la dilay ninkii labaad ee guutooyinka Al-Qassam waxaan idin haynaa faahfaahin iyo xog arrimahani ku aadan iyadoo Xamaas war ka soo saartay weerarkan iyo duqeymo kale oo Israa'iil ka fulisay Mareykanka Gaza oo sababay dhimasho iyo dhaawac hogaamiyaha ururka Xisbullah oo si cad u diiday tilaabo kasta oo Mareykanka iyo Israa'iil la isugu dhiibayo Mareykanka oo la sheegayo arrintan in ay doonayaan in ay ku riixaan ururka Xisbullah arrimaha la xiriira hubka dhigista militariga Israa'iil oo qirtay qasaare ciidankooda ka soo gaaray qarax ka dhacay Mareykanka Gaza hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi oo markii ugu horeysay si cad u qiray hawlaha ciidanka dalkiisu ay ka wadeen gobolka Kriski ee dalka Ruushka halkaasi oo dagaalo culus ay ku dhex mareen ciidamada Ruushka iyo kuwa Ukraine dhammaan wararkan iyo weliba qodobo kale oo faahfaahsan iyo wixii warah ee soo kordha intaynu hawada ku jirno ayaan idinkugu soo gudbinaynaa barnaamijka wararka caawa soo dhawaada mar kale daawadayaal si aad ula socoto una hesho wararka barnaamijyada iyo macluumaadka aynu halkan ka soo gudbinayno haddii aad ka cusub tahay baraheena bulshada amaba horay aadan ugu xirnayn hadda ku soo biir waadna ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka caawa waxaynu ku bilaabaynaa waddanka Syria halkaasi oo uu ka dhacay weerar lagu beegsaday askar Mareykan iyo Suuriyan tan iyo markii isbedelku uu ku yimid xukunka waddanka Suuriya isla markaasna Ahmed al-Sharax uu la wareegay xukunka oo meesha laga saaray Bashar al-Assad waxa isu soo dhawaanayay Mareykanka iyo Suuriya madaxweynaha waddanka Suuriya Ahmed al-Sharax markii uu tagay Mareykanka waxyaalihii uu kala hadlay waxaa ka mid ahaa in uu diyaariyo inuu kala qayb qaato dagaalka ka dhanka kooxaha hubaysan gaar ahaan al-Qaacida iyo ISIS arrintii waa la bilaabay ciidankii Syria waxay ka qayb qaateen hawlgaladii ugu dambeeyay Mareykanku uu fuliyay laakiin weerar ayaa wuxuu ka dhacay maanta bartamaha waddanka Syria halkaasi oo lala beegsaday weerarkaasi ciidamada isku dhafan aynu eegno wararkii ugu dambeeyay amuurahani wararka ka imaanaya dalka Suuriya ayaa sheegaya in weerar dhimasho iyo dhaawac sababay askar Amerikaan iyo kuwa Syriyan ah lagula eegtay deegaanka lagu magacaabo Tadmur ee bartamaha waddanka Syria wakaaladda wararka Suuriya u faafisa wararka ee magaceeda loo soo gaabiyo Sana ayaa soo xigatay ila amni oo sheegay in laba ka mid ah xubnaha ciidanka ammaanka Syria ay ku dhaawacmeen weerarkaasi halka tiro ka mid ah ciidamada Mareykanka iyaguna dhaawacyo ay soo gaareen weeraryahankii falkan geystay ayaa la xaqiijiyay in la dilay balse ilaa hadda lama shaacin faahfaahin rasmi ah oo ku saabsan ujeedada ama duruufaha weerarka ila amni oo la hadlay warbaahinta ayaa xaqiijiyay in qofkii fuliyay weerarkan lagu dilay goobta isla ilowreedada waxay sheegeen in diyaaradaha qomaatiga u kaca ee Amerikaanku dhaawacyadii ay ka daabuleen halkaasi waxayna u qaadeen saldhigga Al-Tanaf ee ku dhow xadka Ciraaq iyo Suuriya kadib weerarka ciidamada wadajirka ee Mareykanka iyo Syria ayaa xiray wadada isku xirta magaalooyinka Dar az-Zur iyo Dimashq iyadoo gebi ahaanba la joojiyay isu socodka gaadiidka taasi oo lagu tilmaamay tilaabo amni oo degdeg ah wafdi Mareykan ah ayaa iyagu booqanayay halkaasi markii weerarku u dhacay waxaana la sheegay inay si degdeg ah uga baxeen magaalada Tadmur iyagoo u jihaystay saldhigga Al-Tanaf xilli heegan amni oo ballaaran laga sameeyay deegaanadaasi goobjoogayaal ayaa sheegay in dayuuradaha dagaalka ee Mareykanku duulimaadii hoose ay ku marayeen hawada magaalada Tadmur iyadoo la maqlayay rasaas arrintaasi oo walaac ku abuurtay dadka deegaanka booqashada wafdiga Mareykanka ee magaalada Tadmur ayaa loo arkay mid xambaarsan fariimo amni iyo siyaasadeed isla markaasna qayb ka ah istiraatiijiyadda Mareykanka ee lagu xoojinayo jigitaankooda lama deegaanka dalka Suuriya wahagaag wixii warah ee arrimahan ay ku soo kordha barnaamijka qubanaha oo goordhow soo gali doona ayaan idinkugu soo gudbin doonaa haddii alla idmo bal markan aynu eegno xaggaasi waddanka Lubnaan ee dariska lah waddankaasi Syria hogaamiyaha ururka Xisbullah Naciim Qaasim
ayaa war cusub oo caawa soo saaray waxa uu sheegay in doorka iska caabinta uu yahay in ay wajahdo cadowga marka dowladda iyo ciidankuba ay ku guuldaraystaan sidaasi inay sameeyaan ama ay ka hortagaan cadowga isagoo ka hadlayay munaasabad ay qabatay waaxda haweenka ee ururka Xisbullah wuxuu adkeeyay Naciim Qaasim in kooxdu ay diyaar u tahay heerarka ugu sarreeya ee iskaashi ee lala yeesho ciidanka Lubnaan isagoo intaasi ku daray in kooxdu ay ogolaatay istiraatiijiyad difaac oo ka faa'iideysanaysa awoodda Lubnaan iyo waliba iska caabinta si kastaba ha ahaatee wuxuu sheegay in Xisbullah ay ka soo horjeedo qaab kasta oo horseedi kara isdhiibidda Mareykanka iyo Israa'iil halkaana markaa deenu dul istaagno muxuu ula jeedaa Naciim Qaasim isdhiibidda wuxuu ula jeedaa Mareykanku waxay doonayaan Lubnaan iyo Israa'iil in xiriirka diblomaasiyadda ay dib u soo ceshadaan isla markaasna haddii ay suurto gasho xitaa waa sida Mareykanku watee Lubnaan ay ku soo biirto waxa loogu yeero heshiiska Abraham Xisbullah marka waxay taagan tahay arrintan waa isku dhiibid in Xisbullah hubka laga dhigo in meesha laga saaro dhammaan kooxaha iska caabinta Israa'iil xiriir lala samaysto dhinac walba la isku furo Xisbullah marka waxay taagan tahay meesha hawlba ka socota Israa'iil waxay haysataa dhulkii Lubnaan iska badaa dhulkii hore hadda waxay haysataa 5 goobood oo buur ah oo koonfurta Lubnaan ku yaala oo ay qabsatay sanadkii hore dagaaladu markay qarxeen marka xaaladdu waa meel adag Xisbullahna waxay leedahay ma jirto waxa la yiraahdo isdhiibid la isku dhiibaya Mareykanka iyo Israa'iil waa hagaag bal markan bariga dhexe intaynu ka tagno aynu eegno dhankaas iyo Kuuriyada Waqooyi waxaynu la soconaa ciidamo ka socda Kuuriyada Waqooyi in loo diray dagaalka Ukraine iyo Ruushka oo ay ka qayb qaadanayaan dagaalada haddaba ciidankii qaar kamid ayaa soo laabtay laakiin si cajiib ah ayuu u soo dhaweeyay hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un aynu eegno wararkan oo ay soo tuurtay wakaaladda wararka KCNA ee laga leeyahay Kuuriyada Waqooyi hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un ayaa sheegay in dalkiisu sanadkan uu u diray ciidamo gobolka Kriski ee Ruushka si ay uga nadiifiyaan miinooyinka taasi oo ah qirasho naadir ah oo ka timid xukuumadda Pyongyang oo ku saabsan hawlaha halista ah ee loo xil saaray ciidamadiisa halkaasi ka hawlgala hadalkan ayaa imaanaya xilli ay jiraan warar is soo taraya oo ku saabsan doorka Kuuriyada Waqooyi ay ka qaadanayso dagaalka Ruushka iyo Ukraine sida ay sheegeen sirdoonada Kuuriyada Koonfureed iyo kuwa reer galbeedka Pyongyang ayaa u dirtay kumanaan askari si ay ula dagaalamaan ciidamada Ukraine oo iyagoo taageeraya ciidanka Moscow taasi oo la sheegay in ay hayd duulaanka Ruushka uu ku hayo Ukraine ku dhawaad 4 sano arrintan ayaa sare u qaaday walaaca caalamiga ee ku aadan iskaashiga military ee u dhaxeeya labada dal falanqeeyal ayaa sheegay in Ruushka Kuuriyada Waqooyi uu siinayo taageero dhaqaale mid teknolojiyad cunto iyo tamar taasi u suurta gelinaysa dalkan go'doonka ku jira in uu ka meermeero cunaqabataynta adag ee caalamka uu saaray Kim Jong-un ayaa amaanay soo laabashada cutub ka tirsan ciidamada injineeriyadda oo ka yimid Kriski isagoo xusay in askartu ay qori jireen waraaqa ay u dirayaan magaalooyinkooda iyo tuulooyinkooda inta nasashada ay ku qaadanayaan halkaasi gaar ahaan hawlgallada miina baarista sida ay sheegtay wakaaladda wararka KCNA cutubkan ciidamada injineeriyadda ayaa la kulmay khasaare murugo leh iyadoo la sheegayo 9 askari in laga dilay intii uu socday hawlgal 120 maalmood qaatay kaasi oo bilowday bishii Agost ee sanadkan Kim arrintan waxa uu ku sheegay khudbadda uu ka jeediyay xafladda ciidamadan markii ay soo laabteen lagu soo dhaweynayay hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi ayaa askartan ku maamusay bilada qaran isagoo sheegay in tani ay tahay hab lagu muujinayo geesinimadooda nafuurinimadooda wuxuuna tilmaamay in askartu ay muujiyeen geesinimo wadareed ayna ka adkaadeen culisyo xagga maskaxda iyo mid jireed oo aad culus oo saarnaa maalin kasta Kim ayaa sheegay in hawlgalku horseeday mucjiso lagu bedelay aag balaaran oo halis ah loona bedelay meel ammaan ah wax ka yar 3 bilood gudahood bishii Abriil Kuuriyada Waqooyi ayaa markii ugu horeysay si rasmi ah u xaqiijisay inay ciidamo u dirtay Ruushka isla markaasna askar ay kaga dhinteen dagaalka sawirro ay baahisay wakaaladda wararka KCNA ayaa muujinaya Kim oo dhoola cadeynaya
isla markaas laabta saaraya askartan soo laabatay qaar ka mid ah ayaa waxaa la sheegaya inay ku socdeen gawaarida curyaamiinta xaflad balaaran ayaa lagu qabtay caasimadda Pyongyang halkaas marka waxaa ka caddaatay inuu dhaqan galay heshiiskii bishii June 2024 magaalada Pyongyang ay ku kala saxiixdeen hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un iyo madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin kaasi oo ahaa iskaashi waxaana qodobada ka mid ahaa haddii labada wadan mid ka mid ah la soo weeraro in kan kale uu taageero Kim marka waa ka soo baxay baa lidhi balantii dhowr iyo 10,000 oo ciidamaha ayuu u diray dagaalka ka socday Kriski waa galbeedka waddanka Ruushka ciidanka Ukraine ayaa gobolkaasi galay bishii August ee sanadka aynu ka soo gudubnay waxa laga saaray horaantii sanadkan laakiin dagaal socday muddo dheer ayaa halkaasi ka socday waxa kaloo lagu macneeyay ciidankan Kuuriyada Waqooyi ay u dirtay gobolkaasi bacdama Kuuriyada Waqooyi dagaal ay sanagalay tan iyo 1950 markii Kuuriyada Koonfureed ay la dagaalantay in khibrad dagaal ay helaan ciidanka marka waxyaalaha ku faraxsan yahay hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi sida sawirada aad ku arkayseen waxay ahayd ciidankiisii oo soo laabtay soona yeeshay khibrad dagaal bacdama dagaal toos ah markii ugu horeysay muddo ku dhow 70 sano ay galeen waa hagaag goorna waxaan u gudbaynaa askar Israa'iiliyiin ah oo ku dhaawacantay Mareykanka Gaza Israa'iil oo sheeganaysa inay dishay hogaamiyihii labaad ee Kataa'ibul Qassam ciidamada Israa'iil ayaa sidoo kale waxaa la sheegayaa weerar ay ka fuliyeen Mareykanka Gaza dad rayida inay ku dhinteen intaana u gudbin wararkaas iyo qodobo kale aynu ka hakanno qadar hayisiina soo dhawaada mar kale daawadayaal wali waxaad la socotaan barnaamijkii wararka caawa oo toos idinkaga imaanaya istuudiyahayaga koowaad barnaamijyadeena waxaad ka heli kartaan bogagga bulshada ee internetka sida YouTube-ka, Facebook-ka, Twitter-ka iyo Telegram-ka warbixino qoraal ah warar faallooyin iyo macluumaadyo kale waxaad ka heli kartaan barta internetka aynu ku leenahay ee www.hbnonlinetv.com ku xirna HBN oo ka dhigo wehelkaaga wararka waa hagaag bal aynu eegno markan askar Israa'iiliyiin ah oo ku dhaawacantay Mareykanka Gaza iyo war ka soo baxay militariga Israa'iil wararkii ugu dambeeyay amuurahani taliska ciidanka Israa'iil ayaa ku dhawaaqay in laba askari oo ka tirsan ciidankooda ay ku dhaawacmeen kadib markii walax qaraxda ay kula qaraxday koonfurta Mareykanka Gaza deegaano ciidamadu weli ay ku sugan yihiin bayaan ay soo saareen militariga Israa'iil ayaa lagu sheegay in labada askari uu soo gaaray dhaawac fudud waxaana ka mid ahaayeen baaliiri ciidamada kaydka kadib markii walax qaraxda ay kula qaraxday ciidankani intii ay ku jireen howlgal lagu nadiifinayay aag ku yaal koonfurta jiida Gaza sida ku cad xogtii ugu dambeysay ee ciidanka Israa'iil inkastoo lagu eedeeyay inay qaranayso khasaaraha dhabta ah ciidanka Israa'iil waxay qirsan yihiin in laga dilay 923 askari halka 6408 ay ku dhaawacmeen tan iyo markii uu bilowday dagaalka Gaza bishii Oktoobar 8 2023 xogtan ayaa isugu jirta saraakiil iyo askar lagu dilay ama lagu dhaawacay Gaza daanta galbeed Lebanon iyo Israa'iil gudaheeda وهاجا isla wararka qasaynteena ka bixin ugu yaraan 5 Falastiiniyiin ah ayaa la dilay halka 25 kale lagu dhaawacay weerar iyo duqeymo Israa'iil ka geysatay Mareykanka Gaza weerarada mid kamid ah ayaa la beegsaday gaari marayay wadada Al-Rashiid ee galbeedka magaalada Gaza taasi oo ah xadgudub cusub oo kana heshiiska xabad joojinta oo dhaqan galay 10 Oktoobar ila caafimaad ayaa u sheegay wakaaladda wararka Anadolu ee laga leeyahay dalka Turkiga in 3 Falastiiniyiin ah lagu dilay duqeyn lala beegsaday gaariga iyadoo goobjoogayaal ay u sheegeen Anadolu in weerarka sidoo kale lagu waxyeeleeyay gaari kale oo ku sugnaa agagaarka gaariga la duqeeyay way inta marka laga tago caawa warka ugu weyn ee dhanka Israa'iil ka imaanaya Gaza la xiriira waa dilka sida Israa'iil ku andacoonayso hogaamiye sare oo ka tirsan Kataa'ibul Qassam aynu eegno wararkii ugu dambeeyay amurahan ee warbaahinta Carabta iyo warbaahinta Israa'iil ay tibinayso militariga Israa'iil ayaa ku andacoonaya in ay beegsadeen hogaamiye sare oo ka tirsan Hamas afayeenka ciidanka Israa'iil ayaa bayaan uu soo saaray waxa uu sheegay in ciidankooda iyo hay'adda sirdoonka Shin Bet ay beegsadeen xubin caan ah oo Hamas ka tirsan iyagoo ku andacooday inuu ku lug lahaa isku dayo dhawaan la sameeyay oo lagu dhisayo laguna soo saarayo hub balse Israa'iil ma aysan sheegin magaciisa
dhinaca kale warbaahinta Israa'iil gaar ahaan raadiyaha ciidanka Israa'iil ayaa sheegay in ciidanku ay isku dayeen dilka Raa'id Sacad oo ay ku tilmaameen ninka labaad ee ugu sarreeya guutooyinka Al-Qassam raadiyaha ciidanka Israa'iil ayaa sheegay in Sacad la weeraray isagoo saarnaa gaari nooca jiibka oo marayay galbeedka magaalada Gaza ee waqooyiga jiida Gaza isla markaasna ay la socdeen xubno kale waxa intaasi warbaahintu ay ku daraysaa in Sacad uu ahaa xubin rogcada ah oo ka tirsan garabka military ee Hamas isla markaasna horey u ahaa madaxa qaybta howlgallada sida raadiyaha Israa'iil uu sheegayo Sacad wuxuu hadda mas'uul ka ahaa soo saarista hubka iyo dib u dhiska awoodda military ee garabka Hamas ee hubaysan isagoo lagu tilmaamay qofka labaad ee ugu muhiimsan ururka ee gudaha Gaza ku sugan marka laga tago Ciisidiin al-Haddad taliyaha garabka military ee Hamas raadiyaha ayaa xusay in Israa'iil dhowr jeer ay ku guuldareysatay dilka Raa'id Sacad iyadoo lagu soo warramay inta dagaalka uu socday dhowr jeer ninkaasi la isku dayay in la beegsado haddaba Hamas ilaa hadda si rasmi ah geerida ninkan umana beenin umana rumayn laakiin warbay ka soo saarta amurahan aynu eegno telefishinka Al Jazeera ayaa waxaa gordhawata uu tabiyey in dhaqdhaqaaqa Hamas ay si adag u cambaareeyeen xadgudubna ku tilmaameen ka dhana heshiiskii xabajoojinta weerarka Israa'iil la beegsatay gaari marayay marayka Gaza bayaanka ayaa waxaa lagu yiri dambigan wuxuu mar kale xaqiijinayaa in guumaysiga Israa'iil oo si ulakac ah u doonayo inuu wiiqo oo u burburiyo heshiiska xabajoojinta isagoo si wada xadgudubyada isa soo taraya ee joogtada ah bayaanka oo Telegramka la soo dhigay ayaa sidoo kale waxaa lagu sheegay in Israa'iil duqeyntan ay ahayd mid markaasi xadgudub ku ah bayaankan ma bixin wax macluumaad ah oo ku saabsan in la beegsaday xubin ama la dhaawacay Hamas waxa ay ugu baaqday dhexdhexaadiyaasha heshiiska xabajoojinta iyo dalalkii damaanad qaaday heshiiskaasi inay qaadaan tillaabooyin degdeg ah si loo xakameeyo Israa'iil taas oo ay ku eedeysay inay iska indhatirayso waajibaadkeeda heshiiska isla markaasna ay doonayso in ay wiiqdo oo ay burburiso waa tahay xubintaas ayaa ugu dambeysay barnaamijkii wararka caawa intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka waana ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka si aad ula socoto wararkan iyo barnaamijyada iyo macluumaadka aynu soo gudbino haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada ama horey aadan ugu xirnayn hadda ku soo biir waa inoo barnaamijka xiga insha allahu tacaala inta ka horeysa nabadgeli